waxaan iskugu nimi maantay toole waxa dalka ka jira inaan ka wada hadalno dareenkeena muujino annaga iyo gabdhaha ganacsatada ah gabar kasta meel joogto iyo gabadha ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed gabadha ganacsatada ah waa isku mid barnaamijkeena in muddo soo socday waxaan la kulannay wuxuu ka dhacayaa gobolada waxaan la kulannay gabdhaha ciidamada qalabka sida waxaan la kulannay bulshada qaybaheeda annagoo ah ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed hogaaminayso Batuulo Sheekh gudoomiyaha ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gaballe iyo ku-xigeenkeeda oo annagoo intaas la wadaagayna kaalinta ay ku leeyihiin haweenka Soomaaliyeed amniga dalka amniga iyo maxay dib soo celidda maxay horumarka iyo nabadda iyo maxay midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan u maleynayaa war la iima hambayn gabdhii iga horeeyay si fiican u hadlay waxa iga dambeyn doona gudoomiyaha walaalayaal gabdhaha ganacsatada ee maanta noo yimid martida noo ah waxaan rabnaa inaan la wadaagno maadaama tihiin hooyooyinka ganacsatada ah ee dalkaba ehelka u ahaa ee ummadda badan ee dhibaataysan gacanta ku hayay siday abaayo u sheegtay maalin walba amni darrada faraha badan la kulmaya waxa weeye amni darradaas hadeynaan anagu ka hortagin hadeynaan dhexda u xiran hadeynaan diidin banaanbaxa hadeynaan ka qaldan wax u sheegin ilaa annaga dhalnay hadeynaan ka dhiban gacanta qaban hadeynaan anagu iskaashan hadeynaan wax isweydiin hadeynaan isla socon hadeynaan xogta wadaagin hadaan maxay dawladda garb istaagin maalin walba mid ka daran baan ugu dhacaysa anagu qaxaya dhibaato waa ka soo daalnay waxaan ka mid ahay gabdhihii dalka burburka uu ugu dhacay waxaan ka mid ahay 30 sano gabdhihii joogay hooyooyinkii ayagoo agoonta korinaya haddana gacanta ku hayay dalka inuu mar Soomaaliya dib iskugu soo noqoto waxaan ognahay xanuun badan waxaan soo marnay dhibaato badan maanta inaan waxaan soo marnay dib ugu noqono ma aha banaanbax ehel ma aha burbur ehel ma aha qalqal ehel ma aha siyaasad qarabin ehel ma aha in dawladda la garab istaago waa system waa la dumin karaa system sida loo dumiyaa waa sahlan tahay laakiin sida loo dhisaa waa adag tahay burbur iyo dhibaato waa soo marnay qax iyo barakac waa soo marnay banaanbax foolxumadiis waa soo marnay waxaan leenahay dadka taayirada gubaya oo maxay tabaasiinka ku shubaya dib iyo oxygen iyo caafimaad darro waxaa noogu filan qaraxyada biliis hana laga daayo qofku wax waa taban karaa dawladdu ma aha madaxdu ma aha aayad quraan ah way qaldami karaan waxay ku qaldan yihiin waa in loogu sheegaa sida abaayo u sheegtay guddi inta la diro in loo sheego la saxo waaye qof kasta oo bil aadan waxay u baahan tahay in la saxo qof dhabi ma jiro in wax loo sheego weeyaan ayadoon qalqal la kicin ayadoon ganacsi la burburin ayadoon dal la dilin waxay ka cabanayaan wiilashii maanta dhaweyn laba qof oo la dilay 10 qof uu dulku marayaa waxa baabaaday hanti waxa dhintay dad badan waxa dalkii oo dhan waa la burburiyay anagu waxaan rabnaa inaan hore u soconina gadaal u noqono ma aha wadooyinkeena meel waxa jira hadda marayso adiga aashil ku galaysa gaariga dhexdiisa meelihii naloo dhiso dawladdu noogu tabaruceen haddaan sii dumino dhibaato waay anigu waxaan qabaa banaanbaxyadu waa caqabado aad u soo kordhay inaan ka hadalnana xaqan u leenahay haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed